Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal subscribe noo saara channelkeena Engineer Noor Abdulqaadir. Subscribe noo saara, soo dhawaada. Waxaan ka hadlaynaa maanta jaaniska ka banaan lacagaha cryptocurrency. Lacagaha cryptocurrency oo dhowaantan soo daatay oo hoos yimid, marka xilligan waa waqtiga ugu fiican ee lacagahan la maalgashto. Qofkii lacag heli kara ha maalgashto lacagaha cryptocurrency. Jaanisyo badanaa ka banaan, haddaad heli karto lacag maalgasho. Lacago badanaa jiraan, marka qaar ka mid ah 5 ka mid ah ayaan kusoo koobaa, oo haddaad rabto 10 xataa waa maalgashi kartaa. 5 ka mid ah haddaad rabto maalgasho waxaa ka mid ah lacagta ugu weyn, lacagaha hooyooyinka, Bitcoin ayaa ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah Ethereum, waxaa kaloo ka mid ah Solana, waxaa kaloo ka mid ah lacag la Chainlink, waxaa kaloo ka mid ah lacag la Dogecoin. Intaas hadda jaanisa ka banaan, marka lacaga badan waa marka inta awoodi karto maalgasho $100, $50, $500, $1000. qof walba iyo wixii tabartiisa wuxuu awoodo ha gashto. Ma waqtigan waa waqtigii la saadaalinayay inuu dhaco lacagi inay kor aadaan oo buy aadaan oo ay si fiican u dhaqaaqaan. Waxaa la rajeynayaa inuu Bitcoin uu markaan uu gaaro waqtiga xagaaga ilaa 150,000 inuu gaaro ayaa la rajeynaa. Hadda wuxuu marayaa 58 meelahaas ayuu marayaa, marka dhaqaaq yar ayuu sameeyey maanta. Maalmahan nasiin ayuu ku jiray, marka inuu si dhaqaaqo oo meel sare uu gaaro ayaa la rajeynaa. Marka ha laga faa'iidaysto. Haddaadan fahamsanayn sida loo isticmaalayo, insha Allah nala soo xiriir. Koorsooyin iyo waxbaan kugu soo dareynaa si aad si fiican u barato cryptocurrency. Marka suuqan waa suuq digital ah, hadda lacagii kale adduunka hadda waa si xawaara ayay ku dhaafaysaa lacagtan. Ilaa heer waxay maraysaa doorashada Mareykanka xitaa inay qayb weyn ka qaadato. Dadka madaxweynaha Mareykanka u tartamayo xitaa lacagtani saameyn weyn ay ku leedahay. Marka lacagtan waa lacag caadi maahan, lacag maalgasho, lacaga oo qaaran anoo banaanin diinta Islaamkana way jiraan. Iska ilaali kuwa xalaalka maalgasho. Soo dhawaada, like noo saar, noo share gareeya.